بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درهانتي بالضاوض يلقصوا دوادة برامج ورادك جنالك حولك ورارك قضبضة أن يدنكو قصوا باهندون وحقائبك النقنية. حكومة فدرالك الصومالية وجواب هذا كبحيسا إذين دوان مسؤولين كترسل مملكة الصومالي لأن أجيدين وزارة الدين توقفت حتى بس ذابة أي وزارة دوكا جوابتا محاسي حلي يعني قصوا بغي إن جوابتا كل البحيسو وزير عبد الرحمن بيله وفاهية العقاد دينتا هاي دولة الصومالية كما هيد العقد الدون كي IMF يفضحت مانتا كده هذا حرونتا قلاها شعبك الضباح حقاك الدوان وأنو كهلنا أيان ودين سوق الدين دونا وضبادا كلا هتقول داوان دونتان وحقيبك نقنية رئيس الوزراء حمزة عبد البر ومانك يقول رئيسه وشقتك حفيز كيسا وحيابانا كو أركي محو إنديسا كو أركي محاسا عجب قلي رئيس الوزراء xilli shalay gabal dhici uu xilkaasi la wareegay qodobadaas iyo qodobo kala duwan ayaan idinkugu faahfaahin doonaa hadba wixii nagu soo kordha waxaana daawadayaal idinka codsanaynaa haddii ay kuu tahay markii ugu horeysay aad ku soo biirtay subscribe like iyo share intuba aad nala wadaagto markaana ku bilaawno xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa dhawaan eedayn kaga timid maamulka Somaliland ay ka bixisay jawaab adag dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay jawaab degdeg ah ka bixisay eedayn uga timiday maamulka Somaliland oo ahayd in dowladda federaalka ee Soomaaliya isku darsatay tirada xujayda Somaliland ay xaq u leedahay iyo tooda sida ay hadalka u dhigeen wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka Somaliland ayaa waxa uu dhawaan shacab ka qaaday mar uu la hadlay warbaahinta deegaanada maamulkaas in sanadkan aysan shacabka maamulka Somaliland qayb ka ahayn dadka xajinaya sabab la xiriira arrintaasi wasiirka diinta awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cali Roble ayaana eedayntaas kaga jawaabay in isagoo sheegay in arrinta xajka aanan la siyaasadeen isla markaana aanan lagu qaybin hab ku salaysan qabaa'il ama maamul goboleed toona wasiirka ayaa sidoo kale waxa hoosta ka xariiqay in sanadkan xajka si wanaagsan ay u maamushay wasaaradda isla markaana loo xil saaray guddi qaybiyay iyadoo oo aan loo fiirinaynin arrimo qabiil dadka xajinaya ayaa waxa uu sheegay in 5206 ruux oo Soomaaliya ay ka heshay wadanka Sacuudiga sidoo kale waxa uu hadalkiisa inta ku daray wasiir Umar Cali Roble in uu la xiriiray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland una sheegay in aysan jirin qoonda la xiriirta xajka oo loo qeybiyo qabiil iyo maamul goboleed ugu dambeyntii wasiirka ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah shirkadaha uu la xiriiray isla markaana ka codsaday in ay ugu yaraan deegaanada Somaliland ka qaadaan ilaa 800 oo ruux balse xukuumadda Somaliland ay diiday maamulka Puntland ayaa waxa uu sidoo kale horay u diiday tirada uu deegaanada loo qoondeeyay xajka iyaga oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay ku tagrafashay qoondada xajka ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed sanadkan ayaa waxa Soomaaliya la siiyay 5000 oo xujay Soomaali ah sabab la xiriira caabuqa COVID-19 oo la yareeyay tirada guud ahaan sanad kasta xajiytay taas oo keentay in la isku qabsado qaabka loo qaybiyo tirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay siiso waxaana 3 sano ugu dambeysay xajka uu ahaa mid aadintiisa ay aad u yareed sabab la xiriira caabuqa COVID-19 oo guud ahaan dunida ku baahay inkastoo sanadkani sidii kuwii hore uusan ahayn wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu baarlamaanka Soomaaliya u faahfaahiyay lacag deyn ah oo hay'adda IMF sanadka 2021 ina dhaafay ay dowladda Soomaaliya soo amaatay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu maalintii labaad oo xiriir ah hortagaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas oo kulankooda ka socda xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho waxa ayna kaga doodayaan miisaaniyadda sanadka 2020 iyadoo oo xisaab xirka 2017 ilaa 2021 kana wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya su'aalooyin adag ay kaga weydiiyeen xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiir Beyle oo su'aalo adag ay weydiiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay lacagta ay dowladda federaalka Soomaaliya ka soo deysatay hay'adda lacagta adduunka ee IMF sanadkii 2021 taas oo shaki weyn laga muujiyay waxa ay tahay iyo qaabka loo maareeyay wasiir Cabdiraxmaan Beyle ayaana qiray in lacagtaas ay isugu jirtay deen iyo deeq sida uu hadalka u dhigay
wasiir Beyle ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay xisaab celinta lacagtaas uuna cadeynayo meelaha horkeena iyo baarlamaanka Soomaaliya hala geeyo waxaan diyaar u ahay xisaab celinta anigu lacagtaasi ma oran ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Beyle. inta badan xildhibaanada madasha ka hadla ayaa ku celceliyay in wasiirka aysan cadeyn jawaabihiisa ayna dalbanayaan inuu sugo maadaama ay tahay xisaab. si kastaba wasiir Beyle ayaa wajahaya doorna la xiriira madmadow badan oo ka jira xisaab xirka dowladda isagoo oo diiday inuu hortago xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka Soomaaliya oo dhawaan ku yeeray. hayeeshee wixii inta ka dambeeyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay codsadeen in wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wax laga weydiiyo arrimaha maaliyadda dalka maadaama dhawaan uu soo gudbiyay miisaan sanadeedka 2020 iyadoo oo baarlamaanka Soomaaliya ay doodii ugu dambeysay ay marsiinayaan si ay u meelmariyaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu maanta hadiray maalintii ugu horeeyay shaqada xafiiska oo uu shalay gabaldhici uu kala wareegay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa oo ku yaala gudaha xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kadib markii uu shalay galabtii dambe xilka kala wareegay ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta ahaa Maxamed Xuseen Roble. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo xilka loo magacaabay 15 bishan Juun ayaa waxa uu xilligaani wixii ka dambeeyay uu bilaabaya wada tashiyo ku aadan sidii uu soo magacaabi lahaa xubno gole wasiiro kuwaas oo isugu jira wasiiro ku-xigeenaha wasiir dowlayaal waxaana jira siyaasiyiin xilal haya iyo kuwa hore u soo qabtay oo doonaya in ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada ee Xamse Cabdi Barre soo dhisi doono. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa horay xilal kala duwan uga soo qabtay waxaana ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo lagu doortay magaalada Kismaayo isagoo oo sidoo kale noqday gudoomiyihii guddiga doorashooyinka uu ku soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa horyaala shaqooyin tiro badan oo u baahan in uu qaabeeyo isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badani u meelmariyaan oo ay qayb ka tahay arrimaha dibadda shaqaalaysiinta dhalinyaro tiro badan iyo kuwo kale oo muhiim ah. maalmaha soo socda waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqo xubnaha golahiisa wasiirada Soomaaliya. guud ahaan barnaamij wareedka janaalka xulka wararka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waana mahadsantiin.